هدي أمبولانشين جارلما أهادين هدي أمبولانشين قرنمو مجوكتين هدي أمبولانشين دستور لما سمايين هدي أمبولانشين فدرال مدونين هدي أمبولانشين حمر لو مجستين هدي أمبولانشين شوف لما سمايين هدي أمبولانشين على كوبا مجوكين هدي أمبولانشين مني ما دو مجوكتيني مشروع الراولة هذا كله والرباح يسار الصغيرة راعية وارباح ورياح بح laba kelmadood oo qura laguma soo koobi karo waxay u sababaha in Ingiriis oo maxay ahayd bariga Prime Minister ayaa wuxuu yiri dabayl ayaa caalamka maraysa wixii wal ee hore u jiri jiray la bedelaysa wind of change ayaa dhacay marka lixdankii waxa joogay dabayshaas ayaa wax waday ra'yi baa laga hore u soo dhisnaan jiray walwaljeesha Soomaaliyeed hal isu geeyay oo ay ka timid shanta Soomaaliyeed waqti Ingiriis uu haystay afar dal oo Soomaaliya Jabuuti ma ka maqnay inta kale hayay walaasa afartii dal dawlad qura cimilada iyo lacag qura iyo administration qura u yeeshay Somaliland iyada inta waxaysataa barigaas ay wax qabsatay ay gacan qabsatay waxa ay leedahay barako leedahay iyo waxa ay leedahay barwaaqo leedahay wada jirku ayaa bariga la arkay fikradda la yiraahdo Greater Somalia bariga dagaalkii soconayay ayay dhalatay lixdankii haddaba barigaas aad ogto oo manaanta loo oomay in Soomaali maxay ahayd kulligeed meel la isugu geeyo barigaas ay abuurantay laakiin maca asaf inta laga fariistay oo la yiri sidee bay ku iman kartaa waxay siyaasiya markii aad arrin siyaasiya marka aad doonto inaad fuliso cadifadiyo siyaasaan doonaya kuma fuli karo waa in loo dhigaa takhdiid plan loo dhigaa wala sidee buu ku iman karaa raayigii annagu markaa lixdankii iyadoo aan wax takhdiid oo badan oo la dhigay aanu jirin dadkii aanu xagga ugu tagnayna kulligii aanu sidii annagu bil ijmaacan uga wada raali ahayn israac ama ugu wada haraadanayn aan loogu wada haraadanayn ayaa la israacay bilowgii waa laaxan ka galay bilowgii ayaa laaxan ka galay oo labadii acted union ladii aanu annagu ka fulinay Hargeysa xamar lagana fulinay mid gooni ayaa laga fuliyay marka dadka looyaradii waxay yiraahdaan juridically yani sharciyan marka loo eego dalbees ma raacin sharci ma dhicin waayo wax la wada baas gareeyo qaynuun qura oo dalka isku mid ah isku xidhay in la baas gareeyo waa maxay taas hadal weeyay marka dalka waa sidoo sano ay wada jiray waa israacay way wad ma tantahay waxa kale oo ku weydiiyay adigu laftigaagu goorma aad istiri isku tagaasi khalad buu ahaa ama base waa aad ku dadaashay kulka wixii laga bilaabo inaad khaladka aad saxdid hadii xitaa ay kula gaarayso kala goyn qaladka anigu markii hore ee aan meesha raacnay laaxin baa galay khalad muu ahayn laaxin baa galay laaxinkii dhahan ka qarsanay waa jirtay mar aan baarlamaanka niri maxay ahayd xagga ka sheegnaa niri war wixii laaxin baa jira laga saaro laakiin oo muddo la isku hayay la isku hortaagnaa laakiin waa la iska liqay taas labadii dal inay israaceen baa loo ictiraafay labada geesoodba 30 sano waatii la wada jiray israacan marka kala go'an iminka waxa keenay laba hal waxa dhacay maanta Soomaaliya aanay jirinba dad Soomaaliya mooyaane xamar maanta ay tahay meel laga guuray oo baabaaday ghost town ay tahay iyo wixii dhashay 30 sano
khusuusan intii uu afweyne dhulka ka madax ahaa waxay dhashay operation ahaa waxaa jiray ka warrami maayo waa laga wada warhayaa dalka Soomaaliland la yidhaaho 500,000 oo ka mid ahaa ayaa carray oo markaa Al-Habash kaaman cayreed ku jira dad ilaahay cayr ka dhigay ma ahayna waa dadkii Hargeysa dhisay ee Burco dhisay ee Ergaabo dhisay ee hodanka ahaa weeye oo la eriyay oo naftooda la cararay weeye ilaa maxay East Africa Europe meel kastaba North America oo dhan meel walba dad caymada ayaa jooga oo wadankan ka cararay niman aan la yaabo oo maanta ka madaxa Muqdisho madax ka sheegta oo cid ka madax ma jirto madax ka sheegta ayaa waxa yiraahdaan Israaca Soomaaliyeed muqaddas way kelmadda muqaddaska ay garanayaan u mareeymaayo waxay tahay muqaddas waxa weeye wax dhowran oo Ilaahay loo nisbeeyo oo nadiif weey ninka muqaddas ku sheegaya waxa maanta Soomaali dhex maray waxa kala kaxeeyay waxa kala dilay ninka muqaddas ku sheegaya muqaddaska aan garanay dhaxlaa waxay tahay haddana haddii maanta waxaad weydiisay goormaad in dadku kala go'go'satay waxaan goostay dadku inuu kala go'o markii aan arkay dadkii reer waqooyi oo tashanaya oo tamar leh oo wixii dhexdooda yiilay shalay dhalay ka noqday xalay dhalay ka noqday oo maamulanaya dalkoodii iyo dantoodii ila laba suuga markaas oo la yiraahdo lagu xidho nin isagu danaysan kari waayo nin dhiigoodii inuu isu xalaaloobo banaystay wara dad isu cunaya dad tashaday iskuma xidhnaan karaan marka walaalayeen reer Somaliland annaga waxaan naga go'naa inaanan hadda aanan diplomatic masalka dawladda Soomaaliya ay leedahay legitimate ka inaanan ku barashar gareyn laakiin there are limits wax kasta oo gooni isu taaga promote gareynayo waa kasoo horjeedna wixii ka soo hara development hadday tahay humanitarian hadday tahay trade iyo business iyo investment hadday tahay all waxa waaye aadan usoo dhaweynaynaa documenti iyo wax dalka dowladda federaalka looga baahdaya horena waa usii jira haddana waa siinaynaa laakiin any agenda oo midnimadeena dhaasi hadda dhaawacantay si dhammaystirayo whatever uu yahay ama dhaqaalaha kusoo gabado ama developmenta loogu soo gabadee waa diidaynaa mana qarinayno inaan diidanahay walaalaha ayagana waa u sheegnay annaga gooni isu taaga ma ogolin مشروع الرالده الرالده هذا كله والرباح يا صار الصغيرة راعية وارباح ورياح بح Somaliland was an independent country and it voluntarily chose to enter into a union. So the concerns around changing post-colonial boundaries is not a case here in terms of an independent Somaliland. Post-colonial boundary, they were an independent country. And the idea now that Mogadishu has any remit in Somaliland is really a piece of nonsense, and it's time the government...